السلام عليكم. barnaamijka waxaa idinku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dilalka caalamka ka dhacay qarnigii la soo dhaafay iyo horaantii qarnigani. xilli uu khudbad toos ah ka jeedinayay telefishinka dalkiisa hogaamiyaha xisbiga shuuciyadda ee asalnimo Injiro loo yaqaan dalka Japan waxaa soo weeraray nin ka soo jeeda xisbiga qaybta midigta fog kaasi oo sita midi aad u weyn isla mar ahaantaasina waxa uu ku bilaabay inuu mididii la dhaco isagoo halkaasi ku dhintay. taasi waxay keentay in mudaharaad xoogani ka bilaabmo gudaha Japan iyadoo sidoo kale dadka qaar ay taageersanaayeen halka xubnaha taageersan mid kamid uu isqarxiyay markii ninkaasi la xiray. 22 Noofambar sanadii 1963 madaxweynaha dalka Mareykanka ee waqtigaasi John Kennedy waxaa isagoo ku sugan bartamaha magaalada Dallas ee gobolka Texas waxaa soo weeraray mid kamid ah xubnihii dadweynaha ay halkaasi ku noolaa kaasi oo lagu magacaabo Lee Oswald waxaana uu ku riday 3 rasaas oo toos isagoo halkaasi ku dhintay Kennedy balse Lee qudhiisu markii loo waday maxkamadda isagoo lagu eedeeyay dilka Kennedy waxaa 3 cisho ka hor intii aan maxkamadda la geynin uu isna halkaasi ugu dhintay kadib markii uu dilay mid kamid ah ciidamada ku sii waday maxkamadda isagoo la sheegay inuu dhintay xanuun ku soo booday. 12 May 1981 wiil loo yaqaan Maxamed oo ka soo jeeda dalka Turkiga waxa uu booboriski labaad ku dhaawacay dalka Boortaqiiska isagoo waqtigaasi booqasho ku joogay. boobka uu soo gaaray dhaawac khatar ah waxa la dhigay isbitaal ku yaala halkaasi halka Maxamed la xiray. Maxamed waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo wax macluumaad oo ku saabsan shakhsiyadiisa kadib markii uu Maxamed xidhnaa muddo ruuc qarni ah ka hor intii aanu boobku dhimanin waxa uu boobku ku tagay xabsiga isagoo gacan qaaday. waxa ay saxaafadda caalamku aad u faafisay xiriirka dhaxmaray dilaaga iyo sidoo kale loo geystaha dhibaatadani kadib markii uu boobku dhintay waxa la soo daayay Maxamed kaasi oo booqday qabrigiisa si uu cadeeyo inuu dhibtani geystay. marka la ku noqono dalka Mareykanka madaxweynihii dalka Mareykanka 1981 Ronald Reagan ninka loo yaqaan xilli uu ka soo baxay hotel ku yaala magaalada Washington oo ku sii wajahnaa gaadhigiisa oo goobtaasi aan ka fogeyn waxa wiil da'yar uu ku soo riday 6 rasaasood oo xidhiidha iyadoo mid kamid ah kaga dhacday sanbabka taasi oo la dhigay dhakhtarka waxaana la sheegay sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay George Bush kii weynaa. waxa ay boolisku sheegeen in wiilka dhaawacay oo ahaa wiil maskaxda ka xanuunsanaya sida ay sheegeen balse isaga oo ka daba hadlay ayaa sheegay inuu caafimaad qabay laakiin uu doonayay inuu baraarujiyo sidii gabadha filmaanta ka matali jirtay dalkaasi Mareykanka. balse carabta ku dhowdu ma ahayn kuwa ka maran geysashada dilka siyaasiyiinta iyo madaxda. 1986 Oktoobar xilli la xusay dagaalkii Oktoobar ee dhexmaray Islaariyiinta iyo Masar waxa madaxweynihii waqtigaasi Anwar Sadat dil toos loogu geystay caasimadda Qaahira isagoo uu geystay ninka loo yaqaan Khalid Istanbuli oo ka tirsanaa kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama bariga dhexe isla mar ahaantaasina uu goobta ka baxsaday wax yar kadib markii uu dilkaasi geystay. tabayaaqadii 1983 ninka loo yaqaan Benigno Maneiro oo kamid ah mucaaradka ugu adag ee xukunkii Marcos ee waqtigaas dalka Philippines ka talinayay xilli uu ka soo degay diyaarad soo istaagtay madaarka magaalada Manila ee caasimadda Philippines waxa iyadoo ay la socdaan xubno saxafiyiin ah boolisku ay ka fureen albaabka iyadoo loo ogolaaday inuu soo dego si looga qariyo xubnaha saxafiyiinta kadibna albaabkii la xiray. waxa wax yar kadib saxafiyiintu ay maqleen rasaas dhacaysa waxa mid kamid ah uu isku dayay inuu daaqada ka sawiro balse ka hor intii aanu sawirin waxa mid kamid ah askartii goobtaasi ku sugnayd uu kula kacay garaac isagoo ka qaaday kamaradu wax ku sawir lahaa. taasi waxa ay keentay inay soo gabagabayso xukunkii Marcos ee uu ka talinayay dalkaasi Philippines iyadoo shacabkii isugu yimi janaasada ama aasitaanka ninkaasi Benigno loo yaqaan oo ku dhawaa 1 bilyan oo qof ay ku dhawaaqayeen erayay ay kamid yihiin xornimo ayaan doonaynaa waxaana ay soo gabagabaysay xukunkii Marcos. sidoo kale waxay kamaradaha caalamku qabteen madaxweynihii waqtigaasi ee dalka Jazaa'ir loo yaqaan Maxamed Budiaf oo ka khudbadeynayay mid kamid ah qasriyada ku yaala magaalada Yohanaba loo yaqaan oo ay ku taala dalkaasi
oo loo yaqaano qasriga dhaqanka ah ee ku yaala isla magaaladaasi isagoo oo ka jeedinaya khudbad uu kula hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa iyo shacabka ku sugan halkaasi waxaa dhabarkiisa kasoo muuqday nin isaga oo rasaas toos ah ku furay kaasi oo ay kaga dhaceen dhabarka dhowr rasaasood oo ka mid ah waxaana uu halkaasi ugu dhintay maxamed bundiyaaf rasaastii ku dhacday waxaa xubnaha qaar falanqeeya siyaasaddu ay sheegayaan in maxamed bundiyaaf ka hortagii iyo xakamayntii ku sameynayay xubnihii looga shakisanaa musuqmaasuqu ay keentay inuu halkaasi ku dhinto. iminkana aynu weerino qaaradda Latin America. isku soo bax doorashooyin oo ka socda dalka Mexico waxaa in toosan lagu fuliyay isla mar ahaantaasina toos loo toogtay Luis Brazonio ninka loo yaqaano oo ahaa hogaamiyaha xisbiga kacaanka ee dalka Mexico kaasi oo la sheegay inuu toogtay ninka loo yaqaano Mario Martinez oo ay boolisku soo qabteen iyagoo sheegay inuu isagu dilay isla mar ahaantaasina maalmo kadib ay u soo bandhigeen bahda warbaahinta ee dalkaasi. sidoo kale waxaa mid ka mid ah xubnihii goobjooga ka ahaa halkaas uu sheegay inaanu ninkaasi dilkii goobta uu ka dhacayay aanu jooginba laakiin waxa ay boolisku taasi sheegeen inaanay waxba ka jirin isla mar ahaantaasina uu ahaa nin isagu joogay kadibna uu isku dayay inuu timaha iska gaabiyo oo uu soo xiray timihiisa taasina ay qarin weyday isla mar ahaantaasina ilaa hadda lama garanayo ninka rasmiga ee dilay ninkaasi iyo hogaamiyaha xisbiga toona balse saxaafaddu ilaa hadda waa isweydiisaa qofkii ka dambeeyay dilkaasi. sanadii 2004 waxaa dagaal toos ah ka bilaabmay dalka Shishaan isla mar ahaantaasina waxaa dagaalkaasi la sheegay inuu ku dhintay madaxweynihii dalka Shishaan ee waqtigaasi Ruushka wakiilka uga ahaa Axmed Khrushchev ninka loo yaqaano taasi oo jamhuuriyadda Shishaan ay doonaysay inay ka go'do inta kale dalka Ruushka waxaana la sheegay dagaalkaasi sidoo kale inay ku dhinteen ku dhawaad 32 qof kuwaasi oo halkaasi ku qorbaxay waxaana dagaalkaasi lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay xubno ka mid ah axsaabta mucaaradka ee dalka Shishaan. isla dalka Pakistan sanadii 2007 waxaa ka dhacay dilal kuwaasi oo ay qabteen indhaha caalamka waxaana ka mid ahaa dil ka dhacay isla gudaha dalkaasi Pakistan sanadkaasi kuwaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 22 qof oo ay ku jireen xubno siyaasiyiin ah oo ka mid ah axsaabta dalkaasi Pakistan waxaana dilkaasi la sheegay inuu ka dhacay goob fagaara ah taasi oo xubnaha halkaasi isugu yimid ku dabaaldegayeen isla mar ahaantaasina ay ka soo bixeen shir weyn oo uu lahaa mid ka mid ah axsaabta dalkaasi Pakistan waxaana ay boolisku sheegeen sababaha dhimashada ugu badan keenay inay ahaayeen in isqarxinaya meesha ka dhacday isla mar ahaantaasina qaar ka mid ah shacabka meeshaasi ku dhintay madaxda kala soo bixeen baabuurta ay saarnaayeen taasina ay keentay inay halkaasi ku qurbaxaan ama ay ku geeriyoodaan.